السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي وسلامتهين maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijka suuqa kala iibsiga xidigaha. Okay, kooxaha Everton iyo Chelsea iyo Tottenham iyo Inter Milan iyo Barcelona oo isku baacsanaya saxiixa City Sergio Aguero. kooxda Man United ayaa iska iibin doonta xidiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Paul Pogba haddii uusan heshiis cusub u saxiixin kooxda The Sun. xidiga Liverpool Mohamed Salah ayaa sheegay in ayna Liverpool weli wax wada hadallo heshiis kordhin ah la furin kooxda. Si kastaba ha ahaatee, Mohamed Salah ayaa sheegaya in uu doonayo in uu sii joogo kooxda Liverpool. Sky Sports, kooxda Man United ayaa diidi doonta dalab walba oo ugu yimaada xidiga khadka dhexe ee Donny van de Beek suuqa kala iibsiga xagaaga. kooxda AC Milan ayaa doonaysa saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Chelsea Tammy Abraham. kooxda Arsenal ayaa ku kalsoon in ay dhammaystiri doonto saxiixa xidiga khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Brighton Yves Bissouma Star. milkiilaha kooxda Arsenal ee Stan Kroenke ayaa lagu soo waramayaa inuu kooxda dhigay suuqa kadib cadaadis xoogan oo uga yimid taageerayaasha kooxda. xidiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ku qanacsan yahay ku laabashada Man United xilli ay sii xoogeysanayso wararka la xidhiidhinaya ka tagista kooxda Juventus. kooxda PSG ayaa isaga baxday bacsigii ay ugu jirtay saxiixa xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi LQB. kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay ka fiirsanayso in ay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga Roberto Lewandowski xilli ay suuqa ugu jirto weeraryahan cusub. kooxda Liverpool ayaa diyaar u ah in ay iska iibiso xidiga khadka dhexe Naby Keita marka la gaadho suuqa xagaaga. rajada kooxda Liverpool ee helitaanka saxiixa xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho oo ku xidhan usoo bixitaanka Reds ee Champions League. kulanka caawa la ciyaari doona ee Man United iyo Liverpool, kulanka adag ee sida weyn loo wada sugayo ee u dhaxeeya Man United iyo Liverpool ee horyaalka Premier League ayaa lagu soo waramayaa in uu halis ugu jiro in la baajiyo lana kansalo galabta sida ay sheegayaan wararku. labada kooxood ayaa isku diyaarinaya kulan adag oo ka dhici doona garoonka Old Trafford, kulan ka tirsan toddobaadkii 34aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. laakiin wargeyska Express Sport ayaa sheegaya in uu kulankan halis ugu jiro in la baajiyo lana kansalo maanta sabab la xidhiidha mudaharaadyo ballaadhan oo la filayo in ay ka dhacaan Old Trafford. taageerayaasha Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay qorsheynayaan in ay ka qayb qaataan mudaharaad badan oo ay kaga soo horjeedaan milkiilayaasha kooxda Man United. mas-uuliyiinta Man United ayaa ka cabsi qaba in ay taageerayaasha Man United sameeyaan mudaharaadyo waaweyn, taas oo keeni karta in la kansalo kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool. asxaabi, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii ciyaareed ee maanta. nabadgelyo.